وسؤال وناكسن Somaliland waxay sida inuu ka warqabno 30 sanadood ay jirtayba siyaasad ahaan waxa uu aasaasa xukuumadaheedii kala dambeeyay siyaasadeeda arrimaha dibadda waxa weeye inaan faraha la faragelin dawladaha aynu jaarkanahay iyo dawladaha kale caalamka ba wixii arrimaha gudahooda waa siyaasad laabadaysan oo Somaliland leedahay waana siyaasad xisbiga wadanina uu ku taageersan yahay siyaasaddiisa dibadda aasaaskana kamid ah inaan la faragelin arrimaha gudaha ee dawladaha aynu jaarkanahay gaar ahaan kuwaas oo iska kan xidhan yihiin dhaqan nabadgelyo ganacsi siyaasado badan oo saameyn ku leh laba dalalkeenaba marka anagoo taa ixtiraamayna oo siyaasadda xisbigana ay tahay haddana waxaa dhacda marar badan in ay ka dhacaan wadamada aynu jaarkanahay waxyaabo la dareengelin kara oo ama dabiici ah sida abaaro daadad qaraxyo dagaalo saameyn ku leh wadamada dadka degan ee aynu dhiig wadaagno markaasoo kale waxay nagu kaliftaa inaynu ka hadallo oo aynu wanaag uga hadallo oo aynu u muujino dareenkeena walaalnimo waxaa la yidhi dhiig weligii ma noqdo biyo marka waxaa taadi weydiisay waxaan maanta kaga jawaabayaa waa arrinta ku saabsan garbaciisa iyo dadkii lagu laayay sidaan sheegay marka hore inagu arrimaha dawladaha aan faragelinayn haddana waxaanu aad iyo aad uga xunnahay dadka aynu dhiigga wadaagno ee kilalka degan wixii ku dhacba meelay ka degan yihiinba dadka dhimashada soo gaadhay ee faraha badan leh ee 200 gaadhayay waanu ka xunnahay in halka ay ku leedeen sidaa daraaddeed waxaan mar walba la jecelahay wanaag iyo nabad inay ku noolaadaan dadka aynu jaarkanahay iyo dawladda aynu jaarkanahay waxaana ugu baaqaynaa inay anagoo og marka horeba ku kalsoon inaanay waxba kala hadhayn inay dadkooda ay ilaaliyaan haddana waxaa waajib nagu ah inaanu usii farno aanu dirno aanu nidhaahno wixii horaa dadka dee sida ummaddiina ugu shaqaynayseen horena idinkay ku mahadsan iminkana waxaanu leenahay waxaasoo kale si aanay dib ugu dhicin ku dadaala dadka la laayina dareenkaygu waxa weeye aad iyo aad baan uga xunnahay waddadaan walaalanahay waxaanaanu jecelahay in ay nabad iyo wadajir iyo wanaag ay ku noolaadaan dadka degan dalka guud ahaan iyo kilalkan ama dawlad deegaanka Soomaaliyeed waanu magaca iyo walaalnimo iyo dhiig iyo dhaqanba wadaagno marka waxaan soo jeedinayaa annagoo aad uga xun inaanay dhacdooyinkaasoo kale aanay dib u dhicin oo laga digtoonaado su-aashaad iga weydiisay Djibouti leedahay Djibouti maxay uga hadli weyday adeer marka ugu horeysa horta Djibouti dee waa dawlad madax bannaan oo danaheeda iyo diblomaasiyadeeda iyo siday u hadlayso iyo waxay ka hadlayso iyo waxaanay ka hadlay iyadoo madax bannaan haddaad Djibouti taqaanana iyo halkan wax ka dhacaan aad isu taqaanana waa meel toos saameyn ugu leh dhowr nooc ugu leh bulsho ahaan ugu leh amni ahaan ugu leh dhaqan ahaan ugu leh waxa kale oo dheer waddanka weyn ee jaarkiisa inay xiriirka aad iyo aad u qoto dheer ay wada leeyihiin marka siday u wada hadlayaan sideennana inagu xiriir diblomaasiyadeed oo badan ma lihin diblomaasiyadda waxaa loo samaystaa in
inaan wax walba dibadda iyo shir jiraayad lagaga hadal marka waxay uga hadlayaan siday uga hadlayaan dee iyagay jirtaa diblomaasiyad bay ay kala hadli karaan xiriir hoose leeyihiin waana arrin xaggooda xasaasi ka ah aad iyo aad xasaasi uga ah bulshadooda saameyn toos ku leh marka inagu inaynu isweydiino inay ka hadleen inaanay ka hadlaan si gaar ah ama si kooban aynu uga hadallo xaq uguma lihin waynu isku garab taagaynaa in wixii ku yimaada waxaynu kala qaban karno haddayna wax kale la qaban karayn inaynu ka aamusno oo aynaan inagu isweydiinayno maxay ka yidhaaheen maxay wax uga qaban waaye ayaa habboon wax walbana dibadda laguma dhaqo oo waxaa la yidhi diblomaasiyad baa tima la xir ayaa ka maarmi waaye in barna guriga lagu xiro barna dibadda sida mahmahada sheegto marka arrimahaasoo kale aan kala baxno inagu faraha wixii wanaageenu ka tari karno jaararkeena iyo arrimaha kusoo baxay wanaaga ayaa inagana inoo wanaago inoo dana degenaanshaha gobolka inoo dana wadajirka inoo dana nabadgelyada inuu ilaalina inoo dana marka ma aha inaynu haddii goraala hadal aan waxba tarayn dadka ku xagno ama inagu isku xagno waana salaamantii